asxaabta waxaan idin leenahay maalin wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barta YouTube-ka aynu ku leenahay ee Wariye Catoosh sheekooyinka hadii aynu eegno kooxda kubadda cagta ee Barca ayaa waxa ay sheegtay in ay safasixi dooneen laacibka reer Faransiis Anthony Griezmann. maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa sheegay in ay ku sii hay doonaan xidigaasi garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Barca. dhanka kale maamulaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa uu sheegay in ay kooxda ay u baahan tahay in la keeno xidiga aad u sareyso. macallin Arteta ayaa doonaya in uu keeno garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Arsenal xidiga aad u waaweyn. haddii aynu eegno sheekooyinka kaleente tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallin Jose Mourinho waxaa la sheegayaa in ay doonayo in uu iska fasaxo laacibka lagu magacaabo Harry Kane kaas oo khilaaf dheer uu soo kala dhaxgalay. haddii aynu eegno sheekooyinka kaleentane maamulka Premier League ayaa waxa ay wada hadal la gali doonaan dawladda UK si ay ugu dhameeyaan waqtiga rasmiga ah ee loo baahan yahay in la bilaabo horyaalka Premier League iyadoo uu habada isku sii shareerayo xanuunka caabuqa coronavirus-ka kaas oo dunida aad u waalayo. haddii aynu eegno sheekooyinka kaleente kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa doonaysa in ay keento xidiga lagu magacaabo Jordan Sancho oo ay keeni doonto garoonka ay ku ciyaarto kooxda shayaadiinta cascas halkaas oo ay doonayso in ay ku soo kordhiso xidigaasi. waliba waxay u sheegtay in ay siin doonto isbuucii lacag dhan 400 oo ganiga sterlinka ah. maamulka United-ka ayaana xidigaasi aad u xiiseynayo maadaama xidiga uu yahay xidig qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigayo. ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta ee Barca ayaa lagu soo waramayaa in ay aad u baadigoobayso soo xirigelinta Lautaro Martinez iyo sidoo kale Neymar Jr. fadlan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha oo aad maanta kala socoteen page-ka YouTube-ka ina ku leenahay Wariye Catoosh. barnaamijka waxaa idin soo saaray la socodsiinaya anigoo Catoosh farsamada waa Yusuf Maxamed Ahmed. inta aan dib ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. saar like subscribe share mahadsanidin.